amarkan ka soo baxay taliska booliiska ayaa lagu mamnuucay in hubka sharci darrada ah lagu wato gudaha magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada hoostaga sidoo kalena laga fogaado jarista dhurta iyo deegaamaysiga iyadoona muramo kala duwan ay ka dhasheen deegaanka gaar ahaan kuwa hoostaga magaalada Dhuusamareeb socdaal loogu kuurgeliyay xaaladaha amni ee ka jira deegaanada hoostaga magaalada Dhuusamareeb oo iska kaashanayaan taliska booliiska iyo sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka iyo maamulka magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta waxaa lagu tagay deegaano dhowr ah oo duleedka ka ah magaalada Dhuusamareeb gaashaanle sare Maxamed Maxamuud jaamac taliyaha booliiska gobolka Galgaduud ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgallo asbuucii la soo dhaafay laga sameeyay deegaano hoostaga magaalada Dhuusamareeb waxa uu sheegay in hubka laga mamnuucay dhacdooyinkii dhacay asbuucii la soo dhaafayna ayagana waan daba galay dadkii waxaan ku raada meeshan laga qabtayna ayagana waa xiran yihiin waa wadna ayagana hadii Ilaahay yiraahdo sidoo kale waxaan bixin doonaa awaamiir ah waan faraynaa waxay tahay in aan ka mamnuucnay dhammaan hubka qaadashadiisa shacabka in laga mamnuucay caasimadda hoos yimaada Dhuusamareeb hubka yaryar iyo hubka waaweyn inaan lagu qaadan karin in maxaan ku raahdaa qofkii lagu arko lana soo xiri doono waajibkiisana la marin doono hadii Ilaahay yiraahdo wareegtadan ka soo baxday booliiska ayaa waxa warbaahinta u akhriyay taliyaha booliiska magaalada Dhuusamareeb Dhamme Burhaan Axmed Roble taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed xafiiska taliyaha saldhigga booliiska Dhuusamareeb ku socota dhammaan inta ay qusayso og gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb og taliyaha qaybta booliiska Galgaduud oo garabkaygan taagan bidix og dhammaan laamaha amniga ee dowladda federaalka ee caasimadda ka howlgala dhammaan ujeedo mamnuucid hubeed laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bisha 3aad 2020 waxaa mamnuucay hub aan sharciyeysnayn in lagu qaato ama lagu haysto caasimadda Galmudug iyo inta ku hareeraysan cidii lagu helo falkaasna waxay mutaysan doontaa ciqaabaha hoos ku qoran waxaa lagala wareegi doonaa hubkii uu sitay mutaysan doonaa xabsi 3 bilooda oo aan la gadanaynin lama gadanayo ganaax ma lahan maalinta lagu qabto hubkaas qofkaas waa lagala wareegayaa xabsi 3 biloodna waa u dheeri oo aan xisaab ku jirin ugu dambeyn waxaan farayaa ciidamada booliiska degmada Dhuusamareeb inay soo qabtaan cid allaala cidii haysato hub sharci darro ah oo ku sugan deegaanada kor aan ku soo sheegnay waxgaradka deegaanada maanta kormeerka amni lagu tagay ayaa waxa ay ka waramayaan sida ay u soo dhaweynayaan arrintaasi iyagoona ballan qaaday in maamulka iyo sidoo kale laamaha amniga ay kala shaqayn doonaan sugidda amniga deegaanada Galmudug gaar ahaan kuwa hoostaga Dhuusamareeb ilaahay baa dawladda noo dhaliyay ilaahay baan uga mahad celinaynaa wax alla wixii ay tiraahdo hana la kula shaqeeyo oo ammaanka sugaya diyaar baan u nahay aniga wixii aan arko wixii maaragtay iga fara kora inaan adinka idinla mukawsado ayaan daw u leeyahay been aan amni lahayn laguma dhaqmi karo laguma noolaan karo nolol kuma noolaan karo deegaankan dhibaato badan buu soo maray waa ilaahay baan barinay waa ka gudubnay waa idin la shaqaynaynaa waa soo dhawaynaynaa hadalka inaan badiyo ma rabo muhiimad buu leeyahay ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Dhuusamareeb Cabdi Xaashi Caroole ayaa waxa uu ballan qaaday in wax waliba oo amniga dhibaato ku ah ay ka gacan sii doonaan bulshada deegaanadaasi balse iyagana looga baahan yahay in ay soo sheegaan cid waliba oo deegaanka fidna ka abuuraysa waxa dhibka inugu ah waa inaga gacan siinaynaa inaad naga gacan siidaan oo aan ka wada hortagno si aad u guulaysataan annaguna aan inii gacan siino awaamirta ay saraakiishu bixiyeen maamulka degmaduna qayb ka yahay qof loogu cududaarayo inuu dadkan iyo meeshan dhibka ka jira sii wado oo xasrad ka sameeyana ma jirto amarkaas inaad qaadataan la inaga rabaa inaad ciidamada la shaqeysaan la inaga rabaa habeen iyo maalin Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb